السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن ضوضيال مeel kastoo aad ka joogtaan daafaha dunida dacaladeeda ku soo dhawaada barnaamijkeena jimca wanaagsan waanu toddobaadkiiba ku soo qaadanay sheekooyin kala duwan kuwaas aynu kaga nasano hawlihii aynu haynay muddadii toddobaadkaasi gudaheeda aynu ku dhex jirnay daawadayaal barnaamijka waxa idin soo saara isla mar ahaantaasina idin soo jeediya anigu Yaxya Muuse Ibrahim iyo waliba Nadiire Maxamuud Axmed. daawadayaal barnaamijka waxaan ku soo qaadanaa sheekooyin isugu jira maad iyo qosol iyo waliba kuwa kale oo jacayl ah. sheekadii taxanaha ahayd ee jacaylka ahayd wadaawadayaal halkeedii aynu ka sii anba qaadaynaa waxaynu haysan Nadiire Maxamuud Axmed. ugu horreyn Nadiire soo dhawow sheekadiina halkii nooga sii anba qaad. Yaxya wala aad baa mahadsan tahay kulli toole sheekadu taxana baynu hay daawadayaashana aad baan ku raali gelinaa iyadoo meel fiican marisay baan ku barjarnay laakiin bartii waan ka sii anba qaadi doonaa insha Allah. waxay noo marisay iyadoo Axmed uu reerkooda ku soo wargeliyeen inuu dalka ka soo baxo maadaama ay laba dhibaato ku kulmeen isagoo reerkoodii u xiisay oo carruurtoodii tabayaan iyo family kale iyo iyadoo uu dhaawac soo gaadhay uu shil galay. Axmed markii xaafadda ku wargeliyeen hadalkaasi wuxuu go'aansaday inuu Maariya garaaco una sheego inuu habeen dambe ay kulmaan. arrinkii baa dhacay uu balamiyay habeennimadii way kulmeen. wuxuu sheegay habeenkii markii isku yimaadeen inuu laba arrimood oo muhiim ah uu halkan ugu yeeray. wadii soo sheekay dhaafay Maariya waxay habeenkii afeef ka sii dhigatay inaan hudheelkii hore la geyn maadaama xusuuso badan hudheelkii hore ku reebay hudheelka dhibaatada ay kala kulmeen uu ahaa. habeenkaasi way isku yimaadeen waxay markii ay waqti wada qaateen waxay u sheegtay inuu bandhigo labadii ujeedo ugu yeeray labadii ujeedo horta Axmed habeenka way ku adkayd inuu bandhigo uu jacaylku uu qabo inuu u bandhigo gabadhaasi maadaama rabin habeenka jacayl u bandhigto balse waxa isku qaban waayay dalkii uu ka baxayo iyo inuu sidaa kaga tago isagoo taa ka duulay habeenkii wuxuu go'aan ku qaatay inuu bandhigo oo inantaasi u sheegto jacaylkaasi isagoo kana baqaya inay ku tiraado xiriir baan leeyahay waxyaabo caynkaas oo kale ah balse aduu habeenkii uu ku indhaadegay una u sheegtay iyada laftarkeegu Maariya aan dhinaceega hadan jaleecno iyada laftarkeedu kamii liidane way jecladay intii inanimo bay xishootay aad adu waxay halkii sheekadu ahaato waxay ku tiri qodobkii labaadna ee sheekaasi iyaduna ku faraxday isna kula faraxsay waa badee tuu rabi Soomaa aad dabadeedna qodobkii labaadna wuxuu noqday inuu sheegay inuu dalka ka bixi doono si degdeg uga bixi doono family hooyadii ay ku soo wargelisay inuu dalka ka yimaado uu yimaado family-googa maadaama loo xiisay uu isna dhaawac soo gaadhay. Maariya ruuxantii aad bay ugu xumaatay hadalkaasi ka soo yeeray Axmed maadaama ay ahayd habeenkii ugu horreeyay ee uu xiriirka u bandhigtay iyada safarkaasi kadiskaaba isku qaban waayay. adiga Yaxya haddii ay taasi kugu dhicilaa kuleyto waa dareemaysaa haddii labadeena ugu dhicin Soomaa aad marka adu arrinkii habeennimadii markii la isla afkartay wuxuu u sheegay inuu subaxnimada uu bari toole habeennimo caawo kale markii uu joogan habeen dambe uu go'aamiyay inuu xaflad u sii dhigo maadaama uu ka tagay sabootin dabadeedna way ka aqbashay wuxuu sheegay inuu subaxnimada soo mari doono suuqa geyn doono si wax u baahan tahay ay u soo iibsato. arrinkii sidoo kale way ka aqbashay habeenkii sidii lagu soo kala hooyay iyagoo labadooduba ay farxad iyo muruga labadooduba ay ka muuqdaan. umar way farxsan yihiin oo jacaylka ku farxsan yihiin waa murugaysan yihiin tagitaanka ay ka murugaysan yihiin. dabadeedna subaxnimadii Yaxya aduu aan ku raadee maanta hadii ay hawl kugu soo korodho kulli qofka ugu horeysa ducanaysa waa saaxiibka. inantii waxay isku dayday subaxnimadii markii ay bixi doonto maadaama subaxnimadii waxay isku dayday inay wacato saaxiibadeed una sheegto inay ay suuqa u raacdo iyadoo ku orantay qofkaas aad raacaysa laakiin waxay sheegtay in suuqa uga baahan tahay alaabo oo ay rabto inay saaxiibadeed u raacdo. saaxiibadeed way ka aqbashay marka xilli hore ahayd Maariya xilli ay nagti jirbi xaafadii u kacday quraacdii u diyaarisay xilligii bay soo baxday saaxiibadeed way la yaabtay waxa ku saaxiib waxa duhurnaanu doono casarna habeenaadu doono weeyay subaxnimadan hore doonaysa maxay arrinkii bay badhigtay ku tiri inaan astaanahay baa tagaya dabadeedna hadartan suuqan aadayna wuxuuna rabaa inuu caaw xaflad ii dhigo
habli iyagoo bartii jooga buu Axmed ku soo maray halkii buu ka qaaday suuqii baa la tagay suuqii markii la tagay Axmed muu jeclaysan in iyadu dooqeyga doorato laakiin isaga doortay inuu dooqiisa u dooro dharka habeenkaasi xidhan lahay dar cad buu soo qabtay dabadeedna way ku qanacday saaxiibadeed ayaa iyadna sidoo kale dooratay dharkaasi deedna adu waa laga soo dareeray cafeteria la yimid waa la iska yara nafisay maadaama ay suuq ka soo baxeen yaxya waana ku soo yara sheeka dhaafee gabadha Amaale saaxiibadeed ahayd Maria markii ay Maria arinka u sheegtay iyadoo saaxiibtinimada ku xeerinaysa haddana way arinka way ka xumaatay waxay tiri adigoo aan wali cid helin iyadoo Marina heerka hashadu go'aankaas ay ka fikirtay markii baynantii waxa ku yimid waxa la yiraahdaa damac dadka kama dhamaado inay saaxiibadeed ninkeedii damacdo Axmed ahaa aduu inantii ishii kala socota inaan kan laakiin isma dareensiinaysa Maria waxay isleedahay waa saaxiibada way yar xeerinaysa Amaal baba ku qabsatay Maria ninkeedii walow ninkeedii noqontay haddana dabadeedna maalintii siba loo kala yimday maxay way isbartay Maria Axmed iyo Amaal waxa ku tir waa saaxiibadii tan waxa sheegtay inuu yahay jacaylkeedii sidii baa la isku gartay waa la soo noqday maalinkii wuxuu sheegay in caawa maqribka ay horu diyaar garoobaan isagu qaadi doono maadaama xafladii caawa tahay gurigii bay yimaadeen hablihii Amaal wali waxa ku maqan wajigii iyo waxa uu yaala uuniyada aduu Axmed baa u sawiran wali dabadeedna habeennimadii way israaceen inantii Amaal waxay isku dayday intii karaankeyga is qurxin karto si inanka u bilantahay si uu nooga qaado dabadeedna habeenkii waa la qaaday labada hablood isku labis bay ahaayeen oo anay ku sheegay yaani damay dharka xitaa ay xidhanayaan laftarkiisa kulli tood garan kartaayo Amaal inay markii horeba ninka damacday waxaad ku garanaysaa markii ay suuq aadeen dharka la soo gadanayay waa tiri dharka iyadoo gaday waa la yimiday adu xafladii baa la yimiday xafladii markii kulli tood xaflad dhalinyarada bay ahayd inaan kamid ah Axmed saaxiibadii baa jeclaaday Amaal oo Maria saaxiibadeed ahayd balse uma muuqdaba ma arkayaba iyadoo Axmed bay la haysataa wali xaflada gooni seer gooni bay ka tahay oo wali yar murugaysan oo laga dareemi karo haddana sina wax yar xirnaysa saaxiibada xisada habeenkii farxadeedii haddana wali wada macsantahay aduu haya dabadeedna waxa dhacday habeenkaasi waa la soo kala hoyday subaxnimadan Axmed insha Allah dhoofayaaba uu ka tagayaa wadanka wabadii habeenkii uu sabatay wuxuu sir hadaba Axmed intaanad caawa xafladan daftarkeyga maxaa gabadhani kaga sii tagi kartaa yani ay kugu xasuusan kartaa maadaama Maria oo gabadhii oo jacaylkiisii ahayd dabadeedna hadiyado aad u kala duwan oo iyada ka farxiyay buu u keenay habeenimadaasi subaxnimadan uu bixi doonaa guriyihii waa habeenimada habli lagu soo celiyay markii habeenkii guriyihii habla lagu soo celiyay subaxnimadii markii uu dhoofay wuxuu soo diray namadii saaxiibadii ahaa mid kamid ah soo soo qaada habla halkii baa la isku yimid Axmed saaxiibadii laftirkiisa kamay liidan Maria oo iyaga laftirkoodu ma jeclaan in Axmed ka fogaado oo adigu maanta saaxiibkaaga kugu dhow ma jecleed inuu ka fogaado dabadeedna halkii baa Axmed lagu sabootiyay gaarigii ayaa wuxuugay gaarigu markuu baxayo waxa la sugaa gaarigu markuu ilaa garow kalimka u baxayo waxa la sugaa intuu day wada buuxsamayso kursi kamid ah gawaaridaasi dhina Maria soo yar fadhiisatay intuu gaarigu buuxsamay maadaama Axmed soo fuulay sidii uu la joogtay ayay dhabtiisa ku gamaaday isna uu ka xishooday inuu gabadha kiciyo ama uu ka naxiyo nafarkii markuu soo gaarigii soo galay uu gaarigii dhaqaaqay Maria naxday dabeedna waxay xasuustay inuu gaarigu dhaqaaqayo halkii uu ku macaasalaamaysay way ka timid intuuna ka iman wuxuu ku sii balamiyay saaxiibadii in gabadhaasina la ilaaliyo wuxuu sidoo kale saaxiibadii ku wareejiyay gaarigiisii si iyada ugu shaqeeyaan iyada lagu qaado halkii lagu kala tagay Maria gurigii bay isaga soo intayna gurigii ku soo noqon bartanka soo marayaan ayuu Axmed doonay Axmed maaha Khadar ayaa Khadar oo Axmed saaxiibkii ahaa baa damcayn inantii Amaal ahayd macni laha hadlo inankii kale saaxiibkii ahaa la socday labadii namada saaxiibkii wada socday ayaa haddana isku maagay in gabadhan Amaal galabada jecel yihiin iyaguna laakiin iyadu meel baa muuqata dabadeedna markii gurigii la yimid iyagoo wali inantan kale Maria maadaama saaxiibadeena la wadaagin bay gurigii yimaadeen habliiba gurigii la keenay afar habeen
axmed lama soo hadal maariya ها مدام دلكينا كتجي مركو دلكي تجي جيرو ولا كل ما يجي أحد ها مدام أحمد جيرو كود عذاب في العشرة لموسى هذا الماريا إن واحد درنتي ماريا إن ولا شيء ذا أسمع لرا أنت بدن أيسيرها يسكو شيء ينشر ولا شيء كيرنا أي هاي ها إن لور عشيكو على رسيكو ترسح ولا المحاكاة قدنتي يعني محاكاة كود عاي محاكاة مقن ومي جواب أو جواب جواب مسين يضو قرار عيسدين إن أنت مدام كيرتها أيسيرتن جورج جارسيسو ها وأمين ويدي تبدينا واحد عذي markii ay adu loo cusub ku celisay maalintii uu soo wicdan maalintii ku risbay u bandhigteen sheekadaasi jirto hadaba maalin iyagoo sida dhar wada meedhaya ayuu soo qaraacay inankii khadar ahaa wuxuu ku yiri maariya aan banka lay waqti ma haysan markaas ku tir walaal in yar soo kugu soo celin doona iyadoo sidii aan wali ku celino halka ay shaqadii guriga ka wadaan buu Axmed soo qaraacay maari markii koolkii Axmed soo aragtay aad bay u faraxday iyadoo dharkii ku sii dul nagaadin beentay waxay damacday inay kacdo oo qol gasho hoosta ka soo xirato dabadeedna halkii bay xaaladiisa ka wareysatay markiiba canaan bay kala hortagtay afar cisho sideed uga maqnaan kartaa eedii la soo hadliyeen aan xaaladaad ku ogaan kara arrimahaas oo kale kala hadashay dabadeedna inantii asma faantay maadaama inuu soo kacay qolkiina iska xidhatay inankii ay rabtay uu la soo hadlay wax yimaadeen ha adoo arrinkiiba u sheegay wuxuu habeenka laba qof isku cusbaan oo garan kartaa ay aad waqti wada qaateen mar dambe oo gabalbada dhacay adoo habeen xilli dambe iska tahay bay xasuusatay inay khadar ku tiran kugu soo celinaya ha way ilowday adoo inankii markuu soo wacay way ilowday dabeedna way ku celisay wuxuu ku yiri arrin baan ka yar leeyahay wuxuu ku yiri inanta saaxiibada ay amaal adoo nolosheeda bal iga waran nolosheedii buu ka wareystay wuxuu ku ogaaday inaan wax xiriir lahayn wuxuu ku yiri arrinkaas jirtay maxaad marka saaxiibadeed Maariyo basaastay de Maariyo ka wareysanaya saaxiibadu leeyahay nolosha saaxiibada bal iga waran way u sheegtay dabadeedna way u bandhig aduu wuxuu ogaaday in gabadhan wax xiriir ah ayna lahayn dabadeedna wax dhacday Maari wuxuu ku yiri arrinkaas baan kaaga baahnid meesha ma soo dhameyn kartaa de way ku tiraan de waa gabar saaxiibada kulli gabar saaxiibadaana waad ha deed waxa ku tiriyeen ana la hadlaya oo arrintaasi siday tahay ugu dhigaya ha habeenimadi sidii baa lagu kala tagay waxa dhamaatay muddadu Axmed maqnaa يعني dalka ka maqnaanay maadaama afar toddobaad maqnaanay Axmed baa sheegay inuu soo noqon doono balse intuu soo noqon toddobaad ka wax Maariyo sheegay inuu reerkooda ku wargeliyo maadaama xaafadoodii markuu xagga tigay wax lagu canaantay diimad kelida guriga uu joogo wax lagu yimaad guriga iska sameysay maadaama qofta noloshiisa dabaqi karayna uu yahay reerkooduna mise wax lagu yiri inaan baan kugu darnaa kulli rag wax lagu dhada ama dhaqaaq ama in reerka lagu daro wuxuu yiri ma de waxba yaan lagu darnaa aniga soo dooranay dookhayga ka ciyaaraya dabadeedna wuxuu sheegay inuu haystaba uu de adu arrinkii xaafadii ay galaan Maariyo u bandhigay arrinkii Maariyo sina ugu naxday sina ugu faraxdo horta inaan ahaan way ka naxaysaa si xaafadii ugu wargelin lahayd markaas fiiradka ha dabadeed waxa dhacday Maariyo habeen iyadoo waligeed waxay haydinta xaafadda ugu xishoodka badan iyadoo wali guriga qolka aabaheed galin bay habeen gashay dabadeed seefta kala ka saaraysa ha laakiin si alla say ugu dhacdo ay garan laabay ha markay fadhiisatay ay aabaheed markay fadhiisatay uu dareemay wuxuu siriinanta kulli maanta waxa ku soo kordhay waligeed qolka markuu qofku ku weeymaan kulli waxa daranaysa qofku waxba waxba jira wuxuu ku yiri aab maanta waxa ku soo kordhay maxaa jira aduu intii hore waxba uga neefin weyday dabadeedna markii dambe bay arrinkii u bandhigtay ha ay ku tirintay sidaas baa jirta arrinkaa baa jira Axmedna uu iman doona wadanka uu imanayay labadii reer way wada xiriireen waa la ballamay waxa la isku raaciyay subaxdii uu Axmed soo degay in arooskii iyo meherkii la isku raaciyo ha Maariyo ku wargelin saaxiibkii khadar ay u wacdo وانا كوسير شيء خلافي إن أنتي أمال هاي مركي أي حريري سمي أنا خضر يو مركي حريري خضر مركي ماري خر مركي ماري حريري سي إن أمال يو يا خضر إن أمال وكوسير سي إنك يدو كتري أنا كان جينا يعني عن شقيسان إنك عسنا وهو إن أنا ليش يسوي لي كفالة قاد كريم دبدنا واحد كتير أنا كان جينا يعني ساسا أبوه كوسير سيداي
inankii qalbi jab buu la kulmay xanuun uu ku yimid dhakhtarka la dhigay axmed markuu maariyo sida ahaado inankii markii dhakhtarkii la dhigay axmed uu soo wacay maariyo ku yiri dee saaxiibkaaga kugu dhidhow waa kale wax kula maamuli karo wax kula markaa wuxuu u sheegay inuu sii diyaariyo goobtii uu ka dhici lahaa meelka hoteelkii iyo alaabadii usii diyaar maadaama saaxiibkiisa wadanka u jooga uu yahay maariyaa soo dhaqaajisay xilli dambe waxay timid gurigii axmed iyo gurigii khadar iyo way ka weyday waxaana loo sheegay inankii inuu cisbitaalka yaalo dabadeed inantii cisbitaalkay ku booqatay waxa raacday gabadhii saaxiibadeed ahayd inankii markuu amaal soo arkay wuu sare kacay dabadeedna wuxuu ku yiri waan caafimaad qaba maariya xanuun daadu xanuunkii inaan ka soo bogsaday halkiiba ay ugu sheegtay inuu axmed maalmahan oo dhan raadinayo waayay maadaama inanka telefoonkiisina xidhnaad ee la waayeyna dabadeedna arrinkii markii uu sidii ugu sheegtay wuxuu sheegay inuu caawi geli doono arrinkaasi uu gabagabayn doono axmed dhakhtarkii khadar uu kasoo baxay dhakhtarkii markuu kasoo baxay dhakhtarkii wuxuu u tafaxaytay siduu hawshii saaxiibkii u wadi lahaa beriyo kale axmed uu soo degi doonaa hawshii hoteelkii wixii baa loo diyaariyey labadii reer halkaasay ku kulmi doonaa inantana lagu kala wareegi doonaa halkiiba laysugu yimiday sidii caadada ahayd inantii maariya ahayd amaal bay xagga hore kasii kaxaysatay saaxiibeedii iyadu ma dareensado qofkani ma dareensanaa laakiin waxyaabo ka waaweyn baa soo socda dabadeedna way kaxaysatay halkii baa laisku raacay weli inantani inankii baa u muuqda sina markii uu axmed soo degi doono uu dalka iman doono khadar bay istaaskiisa ku aragtay isagoo la saaxiib ilaahay ku nabad keeno dabadeedna sawirkaabay la degtay maalinkaasi sawir uu isagu leeyahay oo caadiya uu axmed uu khadar soo dhigay uu ilaahay nabad keeno sawirkaabay maalinkaa la degtay dabadeedna halkiiba maalintii inantii lagu kala wadoomay inantii maariyahayd weydeed waxay ku tiri hablo maadaama hablo la dhalatay habliina mid ka mid ah aan kuu reebo dabadeedna maariya waxay ku tiri yacnihii dee kulley marka kulley gabadha guri umula hooyo qofaa loo reebaa dee aduu toddobaad la joogaa toddobaadka dee inantu inta ugu horeysa ee ay aroosada tahay cid u shaqeysaa looga reebaa marka inantii adu waxay u sheegtay inay iska tagaan reerkooga iska nabad galaan saaxiibadeed la joogi doonto saaxiibadeed bay reemaysa kulley ma oga guntay waxa ku jira soo maha halkiiba gurigii bay kusoo degeen markii gurigii lagu soo wareegay inantii amaal ahayd waxay bilowday inay youtube-ka ka daawato waxyaabo ay ka mid yihiin sidee nin naagle looga qaadaa ama loo hantaa dabadeedna filmaantaas bay gabadhu daawan jirtay yacnihii ay kusoo jiidan kartaa way ku qabsanaysaa markii habeenkii koobaad ee arooska habeenkii ku xigay inankii khadar baa gurigii saaxiibkii booqday iyadaaba ka furtay dabadeedna sidii oo kale bay ugu leedhisay waxayna u sheegtay oo maxay markiiba ku tiri adigoo noloshaada meel saaran anina noloshiisa meel saaran ma rabo waxay ku tiri anu nin baan jeclaa waxay ku tiri ninkaasina waa nin qurbaha jooga ninkan ay jeedaana waaba axmed khadar saaxiibkii weeye dabadeedna sheekadii waxay halkii socoto axmed guduhu galay uu tegay arooskii cusbaa waqti buu la soo qaatay inankii maalinkan iyo jabku qaaday wuxuu go'aansaday inuu dalka ka tahriibo يعني لعبت أنا إن أنت نكون حريصة يو دون كم بقوس هرود جعله قبضنا مقبل أوجي إن أنكو جوري كل جيب جوري كل شيء حافظ ودقمة كبحسن مقالة ذي دقناين إن أنتو كان لها أو أنت بدنا كلام عملة شرين بو كوري العجا ما هي ما أنت هول بيجوس يركضي نكو أما هي برسوي حودي كوري ورقة بنكودي بيا إن ورقة داسي قبض ورسة كوت مهدا أما لراسي way bukuri guriga furiisi uu ku wareejiyay halkiiba Axmed uu halkiiba ka qaaday khadar inuu noloshiisa u lumiyo oo geeyo dibadaha uu dili badaha iyo u maro Axmed khadar maalmo badan baa la raadinayay family-giisii iyo saaxiibkii waayeen markuu sii baxay laakiin gabadha wuxuu sheegay in alaabtan hadiyadan ku dhigay chicken-kaasi ka qaado
warqadda waxaa ku qornay dartaaba noloshayda u lumiyey oon halkaa u geliyay jacaylaan kuu qabana adduunkaada iga dalbatay ayaan kuugu doonay iminkaana igu dambeyn doontaa dalka saasaan ku tahriibay aduu inankii markii xaafadoodii ay raadiyeen laga qoostay lamaraantiisii xirnaayeen axmed iyo sidoo kale maariyana ay raadiyeen maadaama garabkoodii ahaa inantii amaal aan usoo noqonay halkiiba casharaantii kasii wadaa waxaa sideeda bal marun sida dadkan u kala kaxayn karta waxaa dhacday waxaa dhacday inantii waxay sameysaa kolleyto dee ragguna waxay iska jecel yihiin in cunto macaan loo sameeyo adu waxyaabahaas bay iska jecel yihiin inantii amaal ahayd waxay u tafaxaydatay inay arrinkaas u dhan gasho oo ninka cuntada xilli hore u diyaarso oo dharka u maydho wax kasta u diyaarso laakiin iyadu waxay rabtaa un si gabadhani uu u dhahdo ad maxaad hawsha u qabsan lahaday oo dee isku dir bay rabtaa inantii waqti hore ninka cuntada u diyaarisaa dabeedna waxaa dhacday casharaantiina way wadataa waxaa dhacday axmed baa maalin ku yiri waan idin kaxayn doonaa maadaamay lamaano cusub ahaayeen axmed wuxuu go-aansaday maalinkaasi inuu maariyo dibadda u saaro uu waqtiga usoo bedelo taasi markay dhacday maalinkii labaad axmed uu ka yar xumaaday inay gabadh guriga u joogto iyadana saaxiibadeed ah gurigii kaga tagaan oo iyaguna waqti soo qaataan maalinka labaad buu si guud inay u wada baxayaan u sheegay oo maalinkaasi dalxiis tegayaan waqti soo qaadanayaan maalinkii markuu sheegay habeen subaxnimadii inantii maskaxda ciyaarta xisirsidee baad inantani uga faa'iideysaa haddaba weli casharkii baaba u socday inantan dabadeedna subaxnimadii bay waqti hore kacday oo aan looga aqoon subaxii markay kacday bay suuliga kusii shubtay saliid iyo shambo waa xima adu saliid iyo shambo bay kusii shubtay subaxdii hore suuliga dabadeedna qofku kulli marka ugu horeysu soo kaco subaxii meesha ugu horeysu taga waa suuliga maariya subaxii soo kacday waxay ku tasaab xilligan hore maxaa ku kiciyay ee ku dhibay iyadu waa saaxiibada waan daacado u damqanaysa balse gabadhan wax kale la maagan tahay show inantan ama laftirkeyga dawli way xeerinaysaa saaxiibtinimo laakiin jacaylka ka tambatay oo doqon ku noqday gabadh dabadeedna inantii markay suuligii gashay markiiba ku jabto sidii lala damacsanaabaa dhacday way qaylisay inantii amaal waxay iska dhigtay gabadh aan waxanba ogeyn intii wax ka naxay iska dhigtay qaylisay bay u timiday saaxiibadeed axmed bay soo toosisay iyada dabinka dhigtay laakiin de way maran habaabinaysaa dabadeedna axmed bay soo kicisay waxay ku tiri maariya jabtay isna sidii de kulleyta waad garanaysaa kartaa markiiba inta soo booday buu siduu ahaa inantii ku qaaday isbitaalku geeyey waa lasoo kabay waxaa loo sheegay in inantaas wax culusna qaadi karin yacni la fadhiisiin hawlna qabanin inantan amaalna tay reebtay baa u rumowday iyadu wax rabtaa inay guriga la wareegtay gabadhaasna halkaa jiifto markii gabadhii gurigii la keenay waxaana loo sheegay cuntooyinka wadaniga cawniyada la siiyo halkaana iyada chance baa soo banaanaadayo waxay rabtaa inuu ninku iyada la cunteeyo saaxiibadeedna cuntada wadanigii loo geeyo oo maadaama ay jabtay casharkiina weli gabadhan wuu socdaa aduu maalmo waxay maareysa ahaato hadda maariye ma fahamsana cidda hawshan ka dambaysa ma fahamsatay weli iyadu waa de qof daacada kule waxa ma fahamsana in badan oo ka dambaysana weliba fahmi doono imika waa meel soke dabadeed waxay dhacday haddana de inantii imika chance baa u banaanada inankan uga qaadaba gabadha fursad bay heshay waxaa ku dhacday halkiibay casharkii kasii waday axmed baa ayay habeenimad kamid bay ku tiriyeen kaale intii cashadii miiskii kusii diyaarisay dibadda ayay ku tiri kaale maanta wada cashani dimaashay deedna si uu ka yeelay isna intuu ku yiri maye iska socontay ayay ka diiday dabeedna halkii bay ku wada cuntiyeen habeenkii dee waa gabadh waa iska garan kartaa inankii waxay aduu dee way u sheekaysay way ka qosiisay markaasay ku tiriyeen waxay ku tiriyeen axmed maadaama idinkii maarinada habeenkii aydan ila sheekaysan qolka waan ku cidloodaaye caawa khadka iga sheekee dabadeedna waayay buu ku yiri habeenkii inankii wuu isbedelayba weji aana hore maariyo ula tegi jirin buu la tegay wuxuu ku yiri caawa waan daalanahay ma seexanayaa wuu iska seexday maarina sidoo kale way iska seexatay iyadoo deesla weli maxaa ka qaldan ayay iska waxa kale ku tirmaad cashayso markaas ugu waan soo cashay
dee ugama baranin dibadda kusoo casheeya nin qolka ku casheeyaba u baratay daawada intaasaan ku joojin doona habeenka dambaan qisada intaas idinka sii wadi doonaa kulleyta waan ogsoonaynaa meel xun idinku jaray balse waqtigoona inoo saamix lahayn awgii bartaa buu inagu joogi doonaa taxaniin